haweeneydani ma laha mabda nololeed nolosha mabda kama laha inay reer joogto oo reer haysato ha joogto laakiin mabda nololeed iyo vision iyo aragti nololeed ma laha higsi ma laha qoys qurux badan oo ay rabto inay gaarsiiso ubadkeeda iyo reerkeeda iyo xaajigeeda yool iyo hadaf ay rabto inay gaarsiiso ma laha meel ay rabto inay ka dhaqaajiso iyo meel ay rabto inay gaarsiiso ma laha ubadkeeda ma ka fikrayso mustaqbalka ubadkeedu nooca ay noqon doonaan iyo sida ay rabto inay ubadkeeda ka dhigto ilaahay baa garanaysa noqonayaan laakiin ididiila jirta dadkaagu dad wax bartay inay noqdaan inay akhyaar noqdaan in bulshada kooda ididiiladaas iyo dadaalkaas kuma jiro السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتوا عنا وناكسن داوديال ملك استوى أدنى داون إنسان وصاحبكين يا مركلة ما أنت وحرب إن الدين لو ذا كوبي توان قضب أما كوبي توان تلمامود أو أيلا ذا هاي هوين يدحون أنت أنا كوبي توقع تلمامود بلابين ننكم مرك أو ربو إنه نلال سمايست مرك أو ربو إنه حبدقن كيسي يا حب نلالات كيسي هراء سنجل كها كجورو أو جورو lamaane iyo nolol kale wuxuu waqti geliyaa inuu helo qof noloshiisa u qalanta kaga baxo noloshii hore oo uu guuro nolol kale oo qurux badan sahankaasi waqti buu qaataa tashi buu sameeyaa mararka qaar rag qaarna ma sameeyaan hadaba waxa uu raadinayaa waa maxay wuxuu raadinayaa haweeney wanaagsan hadaba haweeneyda wanaagsan iyo haweeneyda xun farqi baa u dhaxeeya waxaa jira tilmaamo iyo dabeecado iyo habdhaqan ay leedahay ta wanaagsan iyo habdhaqan iyo tilmaamo ay leedahay ta xun ninkii gabi waa kii yiri ragga qaarse uma meel dayay oo iska mehershaan isagoo ka hadlayay qaabka dumarka loo soo xusho iyo raggii hore ee Soomaaliyeed sidii dumarka u soo xulan jiray ayuu xulay qaar baan talan aan cidna kala tashanin meelna fiirinin ha marka la yiraahdo hore ka meheriya waa hagaag koob toban qodob laan isla eegno ee kamid ah tilmaamaha aan wanaagsanayn ee aan u wacnayn gabadha leena ay fiican tahay inay tilmaamaha ka dheeraato marka hore lamarka koobaad tilmaanta koobaad ee ay leedahay haweeneyda aan wanaagsanayn habdhaqankeeda iyo dabeecadeeda iyo hab nololeedkeeda usan wanaagsanayn waxa weeye waxay dareentaa nolol cidhiidh markasta oo reer buuxa ay haysato dad iyo dunyo ay haysato rug iyo raas ay haysato haddana nolosheeda iyo nafteeda cidhiidh bay dareemaysaa ma ka hadlayno ku qanacsanida labada qof ee isqaba kaas waa mowduuc kale marka aan ka hadli doona laakiin waxaan ka hadlaynaa dabeecad ahaan iyo habdhaqankeeda wuxuu yahay nolosheedu inay mar walba cidhiidh dareemayso mar walba waxay dareemaysaa cidhiidh comfortable ma aha farxad ma dareemayso nolosheeda iyo nafteedu cidhiidh ay dareemayso qodobka labaad haweeneydan aan wanaagsanayni مساعدة أمها ما تبان تابسو ما كالميسو لمانه هذا النرش حاج كده تبان تابكم قبو تبان تابن نراليتكم قبو مد أقالكم قبو مد أقوانيتكم قبو مان إيا موراليسكم قبو ليرجلينكم قبو وتلمن ونكسنين قبل إلهنا أي في عندنا إنك فقط تيان لهينا إلهي تلمن تسكم صنتو ولبا قضب كلا قضب كان راعي ترى وقت مركو أدقي هينا خاصهان way kala baxaan dumarku waqtigu markuu adkaado oo duruuf soo daristo marxaladii timaado bukaan yimaado baahi timaado qarash la'aan yimaado nolosha ay wax iska bedelaan markaas oo kale aabaha reerku xaajigu wuxuu u baahan yahay garab istaag wuxuu u baahan yahay marwo wax garad ah taban taabisa dhaqaalaha haday tahay iyo dhan kastaba garab istaagta moralka u dhistay u baahan tahay qodobka saddexaad mabda nololeed ma laha haweeneydani ma laha mabda nololeed nolosha mabda kama laha inay reer joogto oo reer haysato ha joogto laakiin mabda nololeed iyo vision iyo aragti nololeed ma laha higsi ma laha qoys qurux badan oo ay rabto inay gaarsiiso ubadkeeda iyo reerkeeda iyo xaajigeeda yool iyo hadaf ay rabto inay gaarsiiso ma laha meel ay rabto inay ka dhaqaajiso iyo meel ay rabto inay gaarsiiso ma laha ubadkeeda ma ka fikrayso mustaqbalka ubadkeedu nooca ay noqon doonaan iyo sida ay rabto inay ubadkeeda ka dhigto ilaahay baa garanaysa noqonayaan laakiin ididiila jirta dadkaagu dad wax bartay inay noqdaan inay akhyaar noqdaan in bulshada kooda ididiiladaas iyo dadaalkaas kuma jiro only just reerka bay hooyo u tahay way si xastaa way soo toostaa cuntada ay caruurta siisaa guriga ka arrimisaa bas laakiin hadaf nololeed ma laha waa dabeecad aan wanaagsanayn uma ogola ninka inay fuliyo go'aamadiisa waa qodobka shanaad waxay ninka u diidaa inuu go'aamadiisa fuliyo haday tahay go'aan waxbarasho haday tahay go'aan dhaqaale way kala dagaalantaa horumarkiisa ay la dagaalamaysa si dadan hawla dagaalanta ama si cad ba hawla dagaalanto
hadii jeer waxay is hortaagtaa go'aamadiisa shakhsiga ninkana rujulada waxa kamid ah sayna barnaamijka ku soo sheegnay ninku inuu qaraarkiisa iyo go'aankiisa leeyahay oo uu fulin karayo nin rageed inuu yahay ragga ka dhex muuqdo waxa la yiraahdaa dumarku markay ninka guursanayaan waxay jecel yihiin inay xushaan nin raga ah oo adag oo geesi ah oo kankan ah oo kidhiisha oo nin inay guursadaan nin raga inay guursadaan ay jecel yihiin markay guursataan waxay jeceshahay inuu noqdo mid ay iska raaco oo ha u nacamleeyo oo waxay tiraahdo yeelo oo iska dameeradaan raacday oo iyadu iska wadwadato oo dabeecadeeda uu ku shaqeeyo amarkeeda ku shaqeeyo saas ay marka dambe jecel yihiin baa la yiraahdaa waaya qodobka lixaad gafafkeeda kama qorkeenato gafkana bashar baad u tahay hadaad ka garawdo qalad gabay caadadeeda tahay abwan gaariga gabay ku darsaday gabadhan gafkeeda iyo qaladkeeda mid ka garawda ma aha way isku sii indha adag kitaabkeeda qumanaha haba qoorta ugu jira waxay ku indha adag tahay go'aankeeda shakhsiga ay aragtideeda hadii la yiraahdo waxaan waa qalad oo gafkan aad sameysay oo kiiskan aad sameysay ama aniga iga gashay ama qoyska ka gashay ama inaga dhamaan inaga gashay way indha adag muran bay meesha la soo fadhidaa taasna waa calaamad aan fiicnayn iyo dhaqan aan fiicnayn tilmaan kale xun bay leedahay oo toddobaad oo ah war badan inay war badan tahay oo dadka isku dirdirto ama reerkeeda ama waxa ka sheegto ama war ha ku keento sideedana waxa la qof ku sheegay ka sheekeeya ku sheegay oo ka sheekeeya bay Soomaalidu tiraahdaa qofka warar ku keenay dadka kula xantay xana ku keenay adigana xan buu ka qaada macdaalka qofka xanta badan ee isku dirka badan ee sometimes war la wareegaya war ku keenay adigana war buu ka qaadaya sababtoo dabeecadiisa hab dhaqankiisa waad arki karaysaa tilmaantaas aan wanaagsaneyn way leedahay waa isla wareeg war badan reerka u tagto naasana la yiri naakana la yiri naakidisha la yiri asay haysa afkeeda ma haysan karto taasna waa dabeecad aan wanaagsaneyn oo gabadha xun ay leedahay dabeecadda sideedada waxa weeye ma laha garaad iyo garasho wax garad ma marka la leeyahay waxa weeye waxaan loo sheegin ma garad xaajigeeda ha noqoto ubadkeeda ha noqoto ehelka kale ha noqoto lisaanul xaalka waxba kuma garato lisaanul maqaalka wax ku garata lisaanul xaalka waxa weeye qofka wajigiisa wax ka akhrisatid qofka wajigiisa farxad ka akhrisatid qofka wajigiisa muruga ka akhrisatid qofka dareen iyo xaalad jirta wajigiisa ka garatid arinta ma laha wixii lagu mudo ee loo sheego un bay qaadataa ama hadii daam hayeesho marka dakiyad fahma iyo fiira ma laha way shaki badan tahay waa qodobka sagaalaad waa mushakiyad xaajigu hadduu suuqa ku raago haddii hawl ku raago hadduu shir ku raago way shaki badan tahay shakigaasi masiir ha noqdo shaki kale ha noqdo waa mushakiyad sometimes walwali walbahaar ba iskaga inta badanna waxa keena shakiga badan kalsooni la'aanta labada qof iyo reerka u dhaxaysa ayaa keena marka shakigaasina waa waxa aan wanaagsaneyn labada qof ay nolol wadaagaan oo reeriyan waxa fiican shaki in xaga iska dhigaan jas kalsoonidooda iyo dantooda kaliya ku ekaadaan dhaqan kale oo ay leedahay baa jira oo tobnaad dabeecad xumo dadka saartay maamaha tiraahda dabeecadda xun waxa weeye qofka aan dulqaadku ku yiri qofku aan hadal u dulqaadan karin ficilna u dulqaadan karin wuxuu dhibsada dhan qofka doosan u dulqaadan karin waa qofkaas dabeecad ma laha aadna uu ugu dhaliilan yahay dhaqankeena qofka aan dabeecad lahayn dulqaadna ma laha sababtoo qofka aan dabeecad lahayn waxay ku kalifaysaa dulqaad yaraantaasi inuu markiiba go'aan qaato oo ka falceliyo cadhadiisa taasina meel bay ka ridaysaa marka sayyi'atu dabeeca waxay leedahay dabeecad xumo aad bay u dabeecad xun tahay dhaqankeeda kama mid ah inay dabeecadeeda dejiso ma kantarooli karto attentionkeeda iyo dareenkeeda ma kantarooli karto waa dabeecad aan wanaagsan oo tobnaad mid kale ay leedahay oo 11aad oo aad u xun waxa weeye ballanta ma office dad hadda wax isku ogaataan oo aad tala gaadhaan oo go'aan gaadhaan way daba martaynaysaa ballanta la oofiyana de aad baynu uga aad in badan diinteena ka hadashay dhaqan ahaan wax wanaagsan sanay wada ogta awfu bil ahdi in al ahda kana mas'uulan baa quraanka ku leeyahay ballanta in la oofiyo mar kastaba way fiicanta hadaadan oofin karin marka hore waa inaadan qaadin ballanta laakiin hadaad ballanta qaadin inaad oofisaa way kula gudboontahay waana mid diiniyan oo fiican dhaqan ahaan ku fiican sharaftaada oo fiican karaamadaada oo fiican mustaqbalkaaga oo fiican waxaan filayaa inaad wax ka faa'iiday waxana aad ku dari lahayd adiga hadii lagu weydiiyo gabadha tilmaamaha xun leh ma aha inaan gabdhaha dhaliilayno laakiin kaliya waxaan tilmaamaynaa tilmaamo xun oo ay bulshadeenu inay ka dheeraataa wanaagsan tahay insha Allah waxaan ku xijin doonaa tilmaamo ay dumarku leeyihiin oo inta badan raggu ku jeclaado waa barnaamijka xiga ayaan ku soo qaadi doonaa bidnillaahi kariim inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa fi amaan illah